السلام عليكم بربي أهان وحين كسو قادننا أقونسيغا إسرائيل أقونستي سوماليلاند مريكانكا سعودية ميدوغا أفريكا جامعة عربتا جاينا أو دمان كسو جوابي لكن سيابا كلا دوان uga جوابي جاينا قوان عد أي قادتي نيويورك بوست وحا وقرية إن مريكانكا وقوان كلي هاي أقونسيغا سوماليلاند هذا maxay tahay go'aankaasi Israa'iil maxay tahay ujeedada ay degdeg ugu aqoonsatay xilligan Somaliland danta ay ka leedahay ayaan iyana war iyo macluumaad cajiib ah idinkaga haya khudbadii ra'iisul wasaare Xamza oo mar kale cirka isku shareertay oo hadda ka hor Israa'iil uga hadlay ayana waan idin hayaa macluumaad ku saabsan muuqaalo sawirro iyo warbixino ayaad uga bogan doontaa qodobkan iyo barnaamijkan saakay waxaan u dhanka kale isla eegi doonaa wasiirka arrimaha dibadda dalka Sacuudiga oo go'aan cad ka soo saaray dawladda Falastiiniyiinta oo iyana ka hadashay aqoonsiga Somaliland ee Israa'iil ay aqoonsatay iyo safarka madaxweyne Cabdiraxmaan Ciro iyo khudbadii uu jeediyay dhaqdhaqaaqiyo iyo xarigyo ka bilowday gudaha Hargeysa iyo guud ahaan Somaliland iyo waxaynu isla eeginaa Soomaalida sida ay uga falceliyeen maxay tahay ujeedada fog ee ku jirto aqoonsiga xilligan ku soo aaday ilaa intee ayuu sagaari karaa wad maqli doontaa ku bilowno aqoonsigii Israa'iil ay ku dhawaaqday shalay inay aqoonsanayso Somaliland iyo xiriirkii dhexmaray Netanyahu iyo Ciro waxa ka dhashay falcelin aad u weyn dawlado waaweyn ayaa ka falceliyay laakiin aynu ku bilowno sida Somaliland gudaheeda looga falceliyay madaxweynaha Somaliland Cabdiraxmaan Ciro waxa uu jeediyay khudbad uu ku hadlayo luqadda Ingiriiska intaanan khudbadda idin dhageysinin waxaan rabaa nuxurka iyo ujeedka khudbadda inaan ku dulmarno Soomaali ahaan Cabdiraxmaan Ciro waxa uu hadalkiisa ku bilaabay maanta waxaan ahay qofka ugu farxadda badan adduunka waxa uu u hambaliyay u mahadceliyay dhammaan dadweynaha reer Somaliland iyo cid walba oo xiriir la leh Somaliland oo danaynaysa danaha iyo horumarka Somaliland waxa uu intaa kadib Cabdiraxmaan Ciro sheegay in Israa'iil ay aqoonsatay ama dawladda Israa'iil sida uu yiri ay aqoonsatay Somaliland ay wax weyn uga dhigan tahay waxa uu sheegay Somaliland in ay dhistay institution sharci dawladnimo dhameystiran muddo 30 sano ah waxa uu sheegay wax walba oo dawladnimo laga rabay marka loo eego sharciga caalamiga international law waxa uu sheegay inay Somaliland u dhameystiran tahay waxa uu sheegay Somaliland xaq u leedahay in ay dawlad madax bannaan oo dhameystiran ay noqoto siyaasad ahaan dhaqaale ahaan sharci ahaan waynoo dhameystiran ayuu yiri khudbadda nuxurkeeda inta ay ahayd waxa uu intaa ku daray in ay Somaliland aad u soo dhaweynayso aqoonsigaasi ayna filayaan dawlado badan inay soo raaci doonaan haddaba dawladaha adduunyada laba ay u qaybsameen kuwa arrinta Somaliland iyo Israa'iil iska fogeeyo oo diido iyo kuwa si daran uga soo horjeesto iyo qolo iyaga ka aamustay oo laga yaabo maalmaha soo socda inay soo hadlaan dawladaha laga yaabo inay ku daydaan Israa'iil waxa kamid ah Ethiopia Imaaraadka dawlado waaweyn ayaa iyana diiday oo war soo saaray waan idin hayaa لكن بلان اسلا دغيسano khudbada Cabdiraxmaan Ciro Bismillahir Rahmanir Rahim I am the happiest person in the world today. The historic address on the recognition of the Republic of Somaliland. Excellencies, all world leaders, distinguished delegates, partners, all Somalilanders. Today, I address you at a moment of historic significance for the Republic of Somaliland. After more than 3 decades of peaceful self-governance, constitutional order and democratic practice, Somaliland has received its first formal international recognition as a sovereign and independent state. This development affirms an objective reality that has long existed. Somaliland meets the legal, political, and institutional criteria of statehood under international law. I express my wholehearted appreciation to the State of Israel for its brave decision, which reflects both historical continuity and confidence
in Somaliland's demonstrated commitment to peace, stability. waayahay taasi waxay ahayd qayb ka mid ah khudbadii madaxweynaha Somaliland Cabdiraxmaan Ciro. haddaba Somaliland madaxweynaheeda waxa lagu casuumay hadda in uu booqdo magaalooyinka Tel Aviv iyo Qudus, halkaas oo uu kula kulmi doono madaxda Israa'iil si loo dhameystiro aqoonsigaasi oo ay u kala sixidaan heshiisyo iskaashiya. Netanyahu markii uu shalay la hadlayay Cabdiraxmaan Ciro madaxweynaha Somaliland waxa uu ku yiri waxaan u sheegi doonaa madaxweyne Donald Trump inaad danaynaysaan inaad ku soo biirtaan Abraham Accord, heshiiska Abraham. haddaba Abraham Accord Israa'iil waa mid ka mid ah kuwa ugu weyn oo ay danaynayso in dunida Islaamka ay ka gaarto. muxuu yahay Abraham Accord? Abraham Accord waa Christianity, Islaamka iyo Judaismka ama diinta Yuhuudda dadka aaminsan oo isdhexgal sameeya oo isku dan noqda, taas oo aan suurtagal noqon karaynin marka la eego Qur'aanka iyo nusuusta sida ku cad. lakum diinukum waliya diin. Ilaah baa hore u sheegay iyaguna inay diintooda leeyihiin, inagana anteena leenahay. dowlado badan oo muslimiin ayaa arrintaa diiday oo iska fogeeyay, laakiin dowlado ku dhacay dabinta ayaa jiro oo ay ka mid tahay Imaaraadka, Morocco iyo sidoo kale Suudaan. inkastoo Soomaaliya laga baqayay in ay ku biirayaan oo ay xilligaasi u jilecsanaayeen, haddana weli kama mid ahan Soomaaliya saxiixayaasha Abraham Accord. hadda Somaliland miyay geli doontaa Abraham Accord? waa haddii aqoonsigan iyo qorshahan la dhammaystiro, lama garan karo. laakiin waxa la isku raacsan yahay oo khubarada arrimaha falanqeeya ay sheegayaan Israa'iil waxa ay leedahay ujeedooyin istiraatiijik ah oo ay Somaliland ka damacsan tahay, oo ay ka mid tahay dekadaha saldhig inay ku yeelato sidoo kale Somaliland si ay xuutiga ugu hesho fursad ay ugu duusho. Israa'iil waxa lagu garanayaa inaysan dan gaar ah cid gaar ah aysan u samaynin oo ay aad u tahay nidaam danaysta ah. waxa sidoo kale Israa'iil lagu garanayaa qixinta iyo barakicinta, iyadoo ra'iisul wasaaraha Israa'iil ay raadinaysa maxkamadda dambiyada dagaalka ICC, iyadoo Israa'iil guud ahaan lagu eedeeyay inay xasuuq geysatay ICJ, maxkamadda cadaaladda adduunka ay dacwooyin waaweyn ka yaalaan. Gaza waxaa lagu dilay 100,000 oo reer Falastiina, qaar baa ilaa hadda ku dhawaad 10,000 meedoodkooda lagu waramayaa inay ku jiraan guryaha burburay hoostooda. dadweynaha reer Somaliland qaar badan ayaa arrintaa diidan oo ka dhidhinaya. haddaba gudaha Hargeysa iyo qaybo ka mid ah Somaliland ayaa lagu waramayaa in lagu xiray culimo waaweyn iyo dad shacab oo arrintaa diiday. waxaa la arkay qolo kale oo iyagana aad ugu dabaaldegay arrintaasi, qaar farxad darteed la sujuudayo. waxaa la arkay qaar mideeyay oo isku dhajiyay calanka Somaliland iyo calanka Israa'iil ama Yuhuudda. si kastaba ha noqotee 30 sano kadib Soomaaliya waxa ay hadda cagta saaraysaa wada yaab leh. waxaa sidoo kale arkaysaa qaar Soomaali ah oo kale iyagana oo u hambalyeynaya oo maamul goboleedyo kale ka tirsan iyo qaar aad uga gubanaya. waxay maanta noqotay in lagu kala qaybsamo aqoonsiga Israa'iil ee Somaliland. waa arrin muujinaysa 30 sano kadib natiijadii dhalatay. qodobka markaynu meesha ku dayno, waxa mar kale cirka sii galay oo aad loo faafinayaa khudbad ra'iisul wasaare Xamse uu jeediyay intii uu socday dagaalka Gaza 2 sano, isagoo xilligaa ka hadlayay kooxaha ka dagaalama gudaha Soomaaliya. waxa uu Israa'iil tusaale ugu soo qaatay kooxaha inay isku mid yihiin. Xamse waxa uu hadalkiisa ku sheegay Israa'iil inay yihiin sida doofaarka oo kale, isagoo Quraanka daliil uga soo qaatay. waxa uu sheegay inaysan waxba ka gambanaynin. waxa uu ku eedeeyay oo uu tilmaamay dhibaataynta iyo xasuuqa ay u geysteen shacabweynaha reer Gaza. waxa uuna ku sheegay Israa'iil inay yihiin qolo aan damiir lahayn. bal ila dhageyso khudbadan maxaa dib u soo nooleeyay. nimankii uu Ilaahay ku sheegay thumma qasat qulubukum min ba'di dhalika fahiya kal hijarati wa ashaddu qaswa. aayadihii Ilaahay ayaa tatajalla fi Gaza, ayadoo cad ayuu Ilaahay inaga tusinayaa siday nimankaasi u qalbi adag yihiin iyo siday u naxariis daran yihiin iyo siday u akhlaaq xun yihiin iyo siday abnaa'ul qiradati wal khanaazir u yihiin
إلهي وحوي نجا تسينيا غزة أي إلهي نجا تسينيا وحي سمينيا وحي ربان هدهان فليكن ما يكون مدقي سنينو وحكست هذا انت هدينا لك ترى من حماس وأرور تحرير إسلامي الصحة مجاهدين واي وحنا لقارسيي عالم الإسلامي وحالقا دقا انت الله يسكدري oo waay haddii aan isla dhagaysanay ra-iisul wasaare Xamza khubarada arrimaha falanqeeya waxa ay leeyihiin Israa'iil waxyaabihii ay ka carootay waxa ka mid ahayd sida Soomaaliya uga falcelisay dagaalkii Gaza iyo go'aamadii ay qaadatay intii ay ahayd xubin ka mid ah xubnaha aan joogtada ahayn ee qaramada midoobay hadalka ra-iisul wasaare Xamza xilliga uu jeediyay waxa uu ahaa hadal lagu turjumay luqadda Ingiriiska Carabiga iyo mid Hibrowga Yuhuudda Israa'iil ayaa lagu warramay in arrintaasi aad uga carootay saameynna ay ku yeelatay inay go'aamadeeda dejiso kaliya taamahan culayska xuutiga ka qabsaday iyo inay xal u hesho baabu mandab dhibaatada ka haysato ayaa qayb ka ahayd Somaliland iyadu waxay qabtay baahi aqoonsi oo waqti badan ay danaynaysay si ay ku hesho aqoonsigaasi ay ku gaartana tanaasul badan oo masiiriya ay u muuqataa in ay madaxda Somaliland sameeyeen inkastoo qaar badan oo shacabkaahi aad u diidan yihiin oo ay dhaliilsan yihiin Israa'iil in naf laga doono waxa inoo soo socda go'aanka lagu warramay aqalka cad in uu ka taagan yahay aqoonsiga Israa'iil ee aqoonsatay Somaliland sheekayab la ayaan idinkaga hayaa wargeyska New York Post ayaa qoray wasiirka arrimaha dibadda Sacuudiga ayaa war idinkaga hayaa dawlado waaweyn oo war soo saaray iyo China aynu ku bilowno dawlado waaweyn ayaa ka falaaliyay go'aankii ay qaadatay Israa'iil ay ku aqoonsatay Somaliland sida uu qorayo wargeyska New York Post aqalka cad ayaa lagu warramayaa in ay gabi ahaanba wax qorshe ah oo miisku saaran ay jirin ay ku aqoonsanayaan Somaliland waxay warbixinta intaa ku dartay aqalka cad ugumaba jiraba liiska Somaliland wax la yiraahdo sidoo kale ma doonaya ayaa la leeyahay madaxweyne Donald Trump wax ay wada diidan yihiin jaamacadda Carabta midowga Afrika iyo dunida Islaamka in uu hadda faragishto iyadoo Trump ay ku furan yihiin xaalado iyo kala daadsanaasho diblomaasiyadeed iyo cadaadis caalami ah iyo xiriiradii caalamka Mareykanka ula lahaa oo aad u liito dawlado waaweyn oo ay ka mid tahay Sacuudiga iyo Qatar ayaa arrintaasi aad ugu diidan Mareykankana waxa uu saaxiib leeyahay dawladahaasi mar raba xiriirka dawladahaas uu leeyahay inay saameyso Sacuudiga iyo Imaaraadka oo hadda ishayo Turkiga iyo Sacuudiga Pakistan iyo dawlado waaweyn ayaa waxa ay diidan yihiin in arrinta Imaaraadka Israa'iil ay gadaal ka riixayaan ay hirgasho haddaba ma ogola ayaa la leeyahay aqalka cad in arrinta Somaliland ay wax hadala ama saameyn ay ku yeeshaan haddaba waxa la tilmaamayaa qorshaha inuu ku egyahay oo kaliya Israa'iil inkastoo Netanyahu uu muuqdo mid raba inuu u ololeeyo aqoonsigani haddana waxaa hortaagan culaysyo waaweyn iyo cilado culculus waxayna ku soo aaday xilliga midka wax aqoonsanaya uu yahay dambiile la raadinayo goobta uu ka aqoonsanayana ay tahay goob dambiye dagaal lagu haysto iyo xasuuq bani aadanimo gacan ku dhiig la rabo inuu wax qabto ayuu u muuqdaa oo iska dhigayo mid ixsaan samaynayo qodobkaas New York Post uu ka qoray arrinta markaynu meesha uga gudubno aynu toos ugu gudubno dawladda China oo ka mid ah dawladaha ugu waaweyn lahna codka veto-ga ama diidmada qayxan ayaa iyadu sheegtay in ay mar walba codka qayxan u adeegsan doonto inay ka hortagto in arrintaasi ay hirgasho ama ay xubin ka noqoto Somaliland Taiwan ay aad uga walwalsan tahay China haddii Somaliland la aqoonsado aqoonsigaas hirgalo qayb dhulkeeda ka mid ah ay u baqaysaa waxayna isku dayaysaa inay cadaadis walba iyo culays walba ay saarto inaysan arrintaa hirgelin waxayna cambaaraysay xadgudubka Israa'iil ay ku xadgudubtay waa sida warka China ka soo baxay lagu sheegay inay muujinayso in Israa'iil fawdo kale ka abuurayso dunida qayb ka mid ah halis iyo qalalaasan inay gelinayso Soomaalida weyn haddaba dhinaca kale waxa iyana dadka ka hadlay iyo dawladaha ka hadlay ka mid ah wasiirka arrimaha dibadda dalka Sacuudiga oo sheegay in dawladda Sacuudiga ay aqoonsan tahay Soomaalida weyn aysan jirin wax ka jira warka uu ra'iisul wasaare Netanyahu ku hadlay waxayna Sacuudiga sheegeen in arrintaasi
awood diblomaasiyadeed iyo xiriir caalami intaba ay u adeegsanayaan sidii ay uga hortagi lahaayeen kala qaybinta Israa'iil ay rabtay inay u geysto dadweynaha Soomaaliyeed ee ay rabtay inay kala daadiso. Imaaraadka wax wara kama soo bixin, wali waxa la tuhunsan yahay inay sheekadan qayb ka wado. Dowladda Jordan ayaa iyana war soo saartay oo sheegtay inaysan aqbalaynin in dadweynaha Soomaaliyeed la kala qaybiyo oo la kala daadiyo. Waxayna sheegtay inay aqoonsan yihiin midnimada iyo wadajirka ummadda Soomaaliyeed. Maamulka Falastiin ee Maxamuud Cabbaas ayaa iyana taageeray midnimada dowladda Soomaaliya iyo dadka Soomaaliyeed. Waxayna aad u cambaarayeen tallaabada ra'iisul wasaare Netanyahu uu qaaday ee uu kula xiriiray Somaliland, isla markaasna uu sheegay inuu saxiixayo aqoonsiga Somaliland Israa'iil ay aqoonsanayso. Jaamacadda Carabta ayaa iyana war soo saartay oo sheegtay inay aad u cambaaraynayso oo ay ka soo horjeedo in la kala qaybiyo Soomaaliya. waxayna ku sheegtay cid walba oo isku dayda Soomaaliya inay kala qaybiso in ay riyoonayso. Midowga Afrika ayaa iyana war soo saaray. war saxaafadeed ay soo saareen waxa ay sheegeen inay aad uga soo horjeedaan tallaabada ra'iisul wasaare Netanyahu uu qaaday, isla markaana ay ku cambaaraynayaan heerka ugu sareeya ee xadgudub loo geysto dal madax bannaan. Isku soo duul dowlado waaweyn oo ay ka mid yihiin Turkiga, Masar, Sacuudiga, Jordan iyo kuwa kale oo ay ka mid tahay Djibouti ayaa si weyn u cambaareeyay xadgudubka Israa'iil waxa ay ku sheegeen ay ku aqoonsatay Somaliland. Madaxweyne Cabdiraxmaan Ciro waxa la filayaa dhawaan inuu socdaalo Tel Aviv, halkaas oo uu ka helay martiqaad rasmi ah oo markii uu hadlayay Netanyahu uu sheegay in firaaqadiisa iyo xilliga ugu munaasabsan uu ku casuuman yahay Israa'iil. wuxuu isna xilliga ballan qaaday inuu tagay sida ugu dhaqsiyaha badan, casuumaadana uu aqbalay. Gudaha Somaliland waa lagu kala qaybsan yahay oo dadku aad bay ugu kala qaybsameen. Warbaahinta dunida aad ayay u falanqaynaysaa oo waxa uu noqday war weyn oo si weyn looga hadlo. lama garan karo natiijada waxa ay ku dambeyn doonto, laakiin waxay ahayd dhacdo taariikhi